la xaqiijiyay Nico Williams oo ku biiraya Arsenal. Kooxda Arsenal ayaa u muuqata mid ku guuleysan doonta tartanka loogu jiro saxiixa xidiga Athletic Club ee Nico Williams, iyada oo ka horeysa Chelsea iyo Barcelona. Xidiga reer Spain ayaa si weyn loola xiriirinayaa inuu ka tago Athletic Club xagaaga soo socda, iyadoo kooxaha waaweyn ee Yurub ay doonayaan saxiixiisa. Warbixin uu qoray Football Transfer ayaa sheegaya in Arsenal ay haatan hoggaanka u hayso tartanka loogu jiro xidigan ka hor xilli ciyaareedka 2025-2026. Sababta Arsenal ay ugu dhowdahay saxiixiisa ayaa ah xaaladeeda dhaqaale oo ka wanaagsan Chelsea iyo Barcelona. Warbixintu waxay xustay in Williams uu haatan toddobaadkii mushaar u qaato 200,000 iyo 385 euro, halka Arsenal ay diyaar u tahay inay siiso 200,000 oo pound toddobaadkii heshiis 5 sano ah. Waxaa intaa dheer Gunners waxay xagaaga fasaxi doontaa ciyaartoy mushaar badan qaata sida Kieran Tierney oo 110,000 pound qaata toddobaadkii, Thomas Partey oo 200,000 pound toddobaadkii qaata, iyo Jorginho oo isna 110,000 pound qaata toddobaadkii, taasoo boos u banaynaysa saxiixa Williams. Dhanka kale, Barcelona iyo Chelsea waa inay taxadar dheeraad ah muujiyaan. Barcelona waxay la daaladhacaysaa xeerarka mushaarka ee La Liga, taasoo caqabad ku noqotay xitaa diiwaangelinta xidigaha kooxdeeda haatan jooga. Chelsea ayaa iyaduna la halgamaysa xeerarka Financial Fair Play maadaama ay xilli ciyaareedyadii u dambeeyay lacago badan ku bixisay suuqa kala iibsiga. Dhammaan arrimahan ayaa Arsenal ka dhigaya kooxda ugu dhow ee ku guuleysan karta saxiixa Nico Williams.